waa sidee dagaalka u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka qabaa'ilka qaarkood oo dhinacaya kooxda argagixisada ee al-shabaab. warbixinteena waxaynu ku eegaynaa dagaalka dalka ka socda maalmihii u dambeeyay heerka uu gaadhsiisan yahay, xawaaraha uu ku bilaabmay, halka uu haatan marayo iyo baaxadda khasaaraha labada dhinac inta uu leegyahay. gobolada Hiiraan iyo Galguduud, meelo bay iyo Gada ka mid ah waxaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ka curtay siiba Hiiraan sida la wada ogsoon yahay dagaalada aan waxba la isula hadhin oo faraha lagaga gubtay. dagaalada ayaa ka dhashay kadib iclaamintii dagaal ee madaxweyne Xasan Sheekh iyo cadho ka timi dhanka reer Hiiraan. al-shabaab waxaa laga qabsaday deegaano dhowr oo ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Galguduud, sidoo kale isla deegaanadii laga qabsaday ayaa dib gacantooda ugu laabtay si dhaqso ah kadib kolkii ciidamada xoogga dalku ka baxeen una gudbeen deegaano kale. meelaha qaarkoodna dagaal baa dib uga dhacay, halka qaar kalena khilaaf ka curtay dib looga baxay. xamaasadii dagaalka iyo sida ay ku bilaabantay dhanka bulshada hal mar waxaa si xawliya cirka isugu shareeray xiisada dagaalka iyo hadalhaynteeda. waxaa soo baxday dhiiranaan lagu taageerayo ciidamada magaca macawisley ayaa caan baxay. waxaa si isxigta dhagaha dadweynaha wada gaadhay meel heblaa la xoreeyey, tuule heblaa la qabsaday, beesha reer hebel baa dagaalka ku biirtay, beel hebla oo soo daahday waa timi, iyo halgudhaga ah erya al-shabaab waa jabeen oo barta TikTok si weyn ugu faaftay. hal mar waxaa dal iyo dibadba isqabsaday taageerada dagaalka dadweynaha Soomaaliyeed ay u muujiyeen. shacabka reer Hiiraan ayaa iyaguna taariikh dhigay. guud ahaan waxaa dhacay 21 weerar oo 13 ka mid ay yihiin weerar iyo weerar celis. Booco, Moqokori iyo Cadda Kibir waxay ka mid yihiin meelaha ugu daran ee la isku mutay. qiyaastii labada dhinac ee deegaanadan waxa dhaawacaya dhimashadu gaadheen dhowr boqol. dowladdu waxay sheegtay inay dagaalada ku dileen in ka badan 200 oo ka mid ah kooxda al-shabaab. walow aan la soo bandhigin, dhanka kale al-shabaab waxay baahisay sawirrada saraakiil nabadoonna iyo askar ay ku dileen dagaalada. inkastoo xawaaraha dagaalku ku bilaabmay iyo abaabulka beeluhu u muuqdaan kuwa haatan caajis galay oo sidii hore aanay u soconin, waxaa kaloo dhaliilaha soo baxay ka mid ah hoggaanka ciidanka oo amaradii hogaaminta ciidamada dad shacaba ama xildhibaano ay la meerinayaan. taasina keentay in deegaano ka mid ah Galmudug dagaalku bariiqday. bariiqashada dagaalka Galmudug waxaa laga diiwaan geliyay waxyeello ciidanka ka soo gaadhay miino la sheegay qof rayid oo ciidanka ku dhex jiray inuu qarxiyay, kaasoo dhanka kale la shaqaynayay, iyo isku milan halisi keentay oo dib loo kala baxay. dhanka dowladda iyo dagaalka waxaa dagaalku oogta ka cadeeyay laablakac dowladeed oo wax qorshe ah wadanin, waana sababta keentay meelihii ugu dhimashada badnaa ee argagixisadu dib ula wareegto. qorshe li'ida dagaalka waxa wehelisa damacyo isa saaran iyo ujeedooyin ka baxsan al-shabaab dhulka ay haystaan in laga saaro. ujeedooyinkaasi sida muuqata madaxweynaha jamhuuriyaddu ka leeyahay dagaalka uu cilaamiyey. waxa muuqata in madaxweynuhu ujeedooyinka dagaalka uu galay ay qayb ka ahayd helidda narrative ka dulqaada culaysyo hogaamintiisa ka haysta oo uga gol lahaa inuu dadweynaha iskaga sii jeediyo. sidoo kale waxaa soo baxaysa in madaxweynuhu dagaalka ku hoos qarinayo dana gaara oo la xidhiidha arrimaha shidaalka. docda kale waxaan ka marnayn raadinta dhanan dhaqaale iyo raadgadasho la halmaasha dhaqdhaqaaqyo dowlado shisheeye oo dhowaan gacansaar Soomaaliya la yeelata ay ka wadaan gudaha caasimadda Muqdisho, kuwaas oo la xidhiidha dhanka ciidamada. docda kale sida ay tilmaameen dadka arrimahan u dhuunta daloola, waxaan ka marnayn qorshe dowladdu ku doonayso in gacanta loogu geliyo dhaqaale xadaaf oo abaaraha loogu talagalay, iyo mid hore ay u ururistay sidii ay u hadoodili lahayd. dhaliilaha dagaalka ee dhanka madaxweynaha. dagaalka oo socday muddo 20 maalmood ah, 16 ka mid ah madaxweynaha dalkiisu dagaalka ku jira waxa uu meerayay dibadaha. 16 maalmood madaxweyne Xasan Sheekh dalka dibadiisa ku maqnaa, kama soo yeedhin umana muuqan hogaamiye dalkiisu dagaal ku jiro. waxa uu soo muuqday 6 koox, kuwaasi oo kala ahaa tagistiisii Washington, ka qaybgalkii meydka boqorada reer Ingiriis, shirkii qaramada midoobay, maruu dumar qurba jooga la joogay, kol lagu arkay Istanbul, iyo markuu ka degay Ethiopia. ciidamada xoogga iyo macawisleyda oo dagaalka ay kaga dhinteen in ka badan 100. sidoo kale xerada nacnac oo al-shabaab ku laysay dhowr iyo 30 ka mid ah askar la qorayay. nabadoonkii guud ee halganka macawisleyda iyo ilaa dilkii taliye Farxaan wuxuu madaxweynuhu ahaa mid dabadameeraya. saraakiisha, askarta iyo inta labeen ah ee ku dhimatay dagaalada iyo goobo kala duwan ayaanu helay qaar ka mid ah sawirradooda. aan dib ugu noqono.
dhaliilaha dagaalka dul hooganaya isma laha mooralka iyo niyadda ay ku galeen ciidamada xoogga iyo dadka shacabka ahi oo ilaa hoggaankoodii u sarreeyay uu furimaha joogo qaarna ay ku dhinteen waxa fajiciisa madaxweyne xasan sheekh iyo dawladdiisu ma hayaan ilaa iyo haatan ku talagalka hal tuulo oo al-shabaab laga qabsaday nidaamkii bedeli lahaa sidoo kale lama hayo sidii loo sii haysan lahaa waana sababta inta meel dhiig ciidan iyo mid shacabba ay qulqulaan haddana ugu badnaan 3 maalin kadib ay al-shabaab dib ugula wareegayso taariikhda dagaalka iyo madaxweyne xasan sheekh su'aasha ugu weyn ee la isweydiinayo ayaa qaabka noocan ee dawladdu dagaalka u gashay ma ka dhaba inta la og yahay taariikhda kolka dib loogu laab maaha markii koowaad ee madaxweyne xasan sheekh dagaal noocan u galay bishan aynu soo dhaafnay ee September ahay waxa ay ku beegan tahay 10 sanadood ka hor kolkii mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ka noqday Soomaaliya sidoo kale dagaalka uu cilaamiyay wuxuu noqonayaa markiisii labaad 9 sano ka hor dadka madaxweyne xasan sheekh aqoonta fiican u leh iyagoo soo xiganaya sanadkii 2014 oo xilligaas oo baarlamaanka loo gudbiyay maamuuska xayuubin in lagu sameeyo madaxweyne xasan sheekh waxa uu cilaamiyay dagaal ka dhana al-shabaab dib bal aan ugu noqono nimankaani waa niman sii dhimbanayo yaanan firqdooda yaanan waxba macno badan yaana idin sameeynin way dhimanayaan waanan ka adkaanaynaa waanan ka adagnahay dalkana waa ka xoreynaynaa haddii alla yiraahdo shacabka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inuu intaas dhiirinaas uu qaato dhiiranaantaas uu nala qaato nimankanna aan dagaalka madambaysa ku socday aan waxaan abaabulka dawladda iyo maxaan ku raadin shacabku meel fiican u maraya mar dhowna dalka meel 1 mitir oo shabaab ka taliyo dalka in la waayo hadafkeena weli inay bamba jidka dhigaan iyo baabuur iyo wiil yar ay soo khaldeen inay soo diraan way sii wadi doonaan baryahan laakiin wax macnaha ay leedahay malaha aakhirka gadaalay ka soo dhamaatay waan ognahay marka wax sii soconaya ma aha maanta waxa ay dadka ku sabayaan waa noolnahay waa jirnaa shabaab weli waa jiraa inay dadka tusaanay rabaan annagu ma jirtiin aan leenahay waad dhimateen waxa ay dadka tusayaan waa sicid dhintay caanihiisa sac dhintay caanihiisa may gadaal ka soo badanayaan shabaab maanta waa sidaa kolkii maamuuska xayuumintii uu ka hoos galay dagaalkaasina waxa uu xilkiisii ku dhamaystay sidii haatan oo ay ku gadaaman yihiin xaalado badan oo gudaha ka haysta iyo qorshayaal dhakran oo la sheegay in madaxweynuhu hoosta ku sito waxa dadka yaqaan aaminsan yihiin in ujeedka uu dagaalka u galay uu yahay raadinta qolof diin oo uu kaga gabanayo culaysyada saaran habacsanaantiisa hogaamineed iyo danihiisa gaarka ee subarka ma jirto ilaa iyo haatan istiraatiijiyad uu madaxweynuhu soo bandhigay iyo wax qorshe ah oo dagaalka u dejiyay waana sababta durba beelihii la abaabulay uu ugu dhacay karaar jabka iyo kala shakigo sidoo kale waa sababta goobihii boqolaalka qof dhiigoodu ku daatay dib lagu laabteen gacanta argagixisada iyadoo uu jiro walwalka ka dhanka ah ka daacad ahaanshaha dawladda iyo noocyada ujeedooyinka ku hoos qarsoon haddana waxaa sii dheer walwal kale oo ah maxaa loogu dhimanayay dhulka al-shabaab laga qabsaday haddaanba laga haysan karayn oo ay dib ula wareegayaan walwalada isbarkan oo aqoon-yahanka Soomaaliyeed badankoodu ka siman yihiin aan soo qaato Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Faarax Macallin oo isku si u arka saartamaya qorshaha xasilinta maxaa ku bedelay argagixisadii meesha hadda ka saartay ayaga waxay sheeganayaan inay nidaam sameeyaan cadaalad inay garsoor sameeyaan inay dadka maamul u sameeyaan inay qabiilooyinka kala celiyaan isdili karin qabiilooyinka waxaasay sheeganayaan dadka u sheegayaan dawladdu waxaa laga rabaa marka qorshaha xasilinta u ahaa maamulka in la sameeyo ciidankan macawisleyda nafteeda la qarameeyo ciidan dawladeed laga dhigo saa sheegay cadaaladii garsoorkii la sameeyo dadka Soomaaliya weli qabiilada way kala shaqsiin hal qabiil gudiis ah kala shaqsiin lada loon qabiil kale ka baxsan boolisleeya qabiilkan guuleystay ama bari ayatiinkii iyo ka talintii iyo awoodii asaga oo la wareega dawladda marka waa inay sovereignty la wareegtaa qabiilka waa in siyaada laga qaadaa dawladdu waa in ayadata wax sovereignty haysa maha qabiil haddii qabiil muayana inta nimankii ka adkaaday inuu asaga afaarihii arintii ka taliyo siyaasadeed ma aha waa inay dawladda iyo maamul goboleedka iyo wax ka talinayaan si marka looga taxadaro nimankiina hadday duurka galaan dad dawladka isku dirayaan waa yaqaanaan dadka sida feetooyinkooda iyo boogahooda looga kalluumaysto shabaab khatar ku yihiin qabiilkii kale oo dareemaya midka guulaystay inuu halis ku yahay soo xoojinaya marka waa inuu qabiilkaas kala dareemin in qabiil kale guulaysto asaga laga guulaystay ee nimankii la soo dhaxgelin marka arrin sahlan ma aha hadda qabiil baa hubaysay
قبيل هارس كانت ترتيراتي مالك استقبل باكر يا هو ليسي قبيل كأسا ولا أول هو بسناب سيجارة كوسو وضعي أيه مالك الله ترتير مع صهاري فرب بدن با صهاري وودا كو دحجر oo gacanta qabiil ugu jiro gacanta qabiil ugu jiro beel ugu jiro meel kasta hadda waxa ku qaadanaysa kelima al-shabaab iska tirtira al-shabaab iska tirtira allaga raadin adaan sababuli weyn meel filan baan ugu soo duulay hadhow ana barakicin way garsama way ana barakicin marka faa'iidadeeda muddadan yar shacabka dhan la kicay way u baahan tahay laakiin shacabka intii loo beeyay ka soo laay idinka liiraad laga rafiyay goob kasta oo dawladdu la wareegto waxa la rabay xasilin iyo nidaam abuur mana jirto ilaa iyo haatan hal meel oo ka mid ah bariga Hiiraan meelaha la wareegay oo laga hirgeliyay bedelka al-shabaab nidaam dawladeed waana sababta dib looga wada qaaday meelaha qaarna kala shaki looga baxay geeriyaha waaweyn ee dhacay oo nabadoon hagar iyo jenaraal qaroore ugu dambeeyeen kolka laga yimaado laba arrimood oo madaxweynuhu isa saaray waxay daliil u yihiin nooca uu yahay dagaalka uu ku jira madaxdii ciidamada hagi lahayd oo dagaalka furinta xabadda la geeyay oo kii dhintaaba uu ka dhigan yahay ciidan jab qaran laba muddada intaa leega dagaalku socday madaxweynuhu dibadmeerka ahaa ma jiro hal shir oo gole amni qaran ay yeesheen iyo wax hadalhayntiisa ay toona waxa la galay dagaal qorshaha lagu galay uu yahay isa suuxin iyo ismaaweeli dawladda iyo taageerayaasheedu waxay suuqa laba jeer oo kala duwan soo galiyeen in la dilay afayeenkii argagixisada Cali Dheere taasoo aan waxba ka jirin dhanka kale al-shabaab dagaalka waxay ku dileen laba hoggaan oo aad u culus oo kala ah Farxaan Maxamuud Aadan jenaraalkii ciidamada gobolka Banaadir iyo kuwa gaarka ee Harimha iyo nabadoonkii guud ee horkacayay shacabka macawisleyda idilkood waa nabadoon hagar diriirta dawladda dhankeeda waxa dul yaala 1000 iinood oo aan cudurdaar loo hayn waxaana dagaaladu haatan u sawireekaadeen kuwa shacabka baraya argagixiso awood leh dhulkii laga qabsado aan laga haysan karin oo gacantoodu gaari karto ragga ka ugu mudan